dowladda hoose ee degmada Burco ayaa maanta bilowday howlgallo ballaaran oo ay ku banaanayso ilaa 2 wado oo ay ka dhisayso gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Wadada koobaad ayaa waxa ay ka dhisaysaa jid weyn oo dhinac mara hoteelka caanka ah ee Nasiye ee ku yaala magaalada Burco, kaas oo ay guud ahaanba burburisay maanta geerar sharci darro ay uga dhisteen dad muwaadiniin oo reer Togdheer ah. waxaana ay dowladda hoose tilmaantay in wadadan ay iska kaashanayaan dowladda hoose ee degmada Burco iyo sidoo kale mashruuca GPLG-ga loo yaqaan horumarinta degmooyinka iyo gobolada. sidoo kale waxa ay maanta howlgal ballaaran ka fuliyeen wado ku taala iyaduna bartamaha magaalada Burco gaar ahaan xaafadda Baarsigo, kaas oo ay sheegtay dowladda hoose in si rasmiyadu ay u maalgelin doonto dhismaheeda. waxaana ka dhex muuqanaya duqa degmada Burco xogayaha fulinta ee dowladda hoose iyo kusimaha barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Yuusuf Ubaxle, waxaana ay halkaasi ka soo jeediyeen hadallo ay dadweynaha ku guubaabinayaan inay ka qayb qaataan horumarinta wadooyinka iyo soo celinta bilicda magaalada Burco. halkan ka wadnaa hawl nadiifin laga nadiifinayo wadada waxyaabaha wadada aan dhisi doonay laamiga halkan aan doonay inaan ka bilowno cabirku qabsaday haday dhir tahay iyo haday markaa tahay barkado haday geerar tahay guri yar oo laga dhisay intaba waanu ka kala gareen oo ka saaf garanaysi wadada markaa aan qalqalooc iyo leexleex midna aan u yahay waxaan markaa aad iyo dadka ugu baraarujinayaa inay iskay garab taagaan oo aanay ku xisaabtamin aqal geed yar laga hor dhisay geed ka hor baxay ay ku xisaabtamaan waxa ka weyn ee maanta u soo ku qosliyo baa mashruuc maanta wada noqonayo guryaha xaafadaha marka laami laga hor dhiso baqaaro supermarket qurux magaalada dhinac walba ka soo kordhinaya. marka waxa leeyahay dadweynuhu iyaguna halka ku farxi lahayn ku soo dhaweyn lahayn waa waxyaabaha leedin hagaajinay waxba la idinka xumayn maayo. dadweynaha reer Burco waxa leeyahay war haday dawladda hoose tahay iyo haday gobolka tahayba aynu guntano oo wax qabadkeena uu muuqdo har iyo goore midnimadeena guri barwaaqo maanta la lagu wadaa aynu gacmaha isu qabsano. dowladda hoose ee magaalada Burco ayaa waxay u muuqataa xilligan mid u soo jeesatay horu socodka iyo wax u qabashada bulshada reer Togdheer. waa Cabdi Sattar Sabri, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.